laysu sheegtiyo isqoraansi baa yimi qaradaha adduunyada laysu qoonsay nabadi quwad laysu sheegtiyo isqoraansi baa yimi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وناكسن dhegeystayaal halkan waa idaacadda Star FM magaalada Muqdisho ku soo dhawaada barnaamij wareedka xogmaal oo habeen walba goorahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda Star FM magaalada Muqdisho salaan sare iyo soo dhaweyn kadib dhegeystayaal magaciigu waa Sadaam Maxamed Daahir saacada soo socota qodobada aad barnaamijka ku dhageysan doontaan waxa ay kala yihiin taasay tahay cadaadiisaan ku wadnaa in dhagaxaas la qaado oo magaalada la isu furo arrintaasna meel fiican ay noo maraysaa adigu isbuuc gudihiis inaan arrintaas ku guulaysanaan rajaynaynaa maxaa yeelay dadaal fiican aan ka wadnaa maanta waxaa dib dhagaxaanta sanooyin badan kadib looga qaaday qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho sidee ayay u arkaan shacabka caasimadda in dib loogu furo wadooyinka waa dareemi kartaa meel xiran meel ku dhow u soo wareegay waqti badan oo marka haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah waana aad iyo aad u soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu amiirka cusub ee dalka Kuwait kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal booliiska Soomaaliya waxa uu isbedel ku sameeyay habka faraqaadista hay'adda dambi baarista ee CID-da qodobada kale ee barnaamijka ku jira waxa kamid ah labada qof ee kala jinsiga ah ee raba inay qof hotel wada degaan hotelku waa inuu weydiiyo shahaadada nikaax maxkamadda sare ee dalka oo digniin u dirtay milkiilayaasha hoteelada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland waxay ka qaybgalayaasha shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye ay u doorteen in uu noqdo gudoomiyaha xisbigaasi taliska booliiska Soomaaliland waxay gacanta ku dhigeen 2 nin oo ku eedeysan faafinta diinta Kirishtanka beeraleyda magaalada Cergaabo waxay ka cabanayaan mashruuca naqshadeynta magaaladaasi qodobada kale ee barnaamijka ku jira waxa qayb ka ah waa dawladda haddii ay u soo duubato oo ay bilowdo maxaan ku yiraahdaa ay idanayso afkaan waa hirgalaya waa qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in ay si dhab ah xafiisyadooda uga dhaqan galiyaan ama uga hirgeliyaan adeegsiga afka Soomaaliga gabagabada barnaamijka si caawa waxaan idinku hayaa haddaanu diidno waa noo dhagxumo waa naga dhantahay waa naga dhabtii kaalintaas suugaaneed iyo qodobada hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen oo faahfaahsanba goordhow inaga fisha ha yeeshee barnaamijkeena waxa aynu ku bilaabaynaa wararka Soomaalida ee caalamka kuwa ugu waaweyn Cabdixafiid Nuur Maxamuud ayaa inoo soo jeedinaya محسن سيدا محمد داهر dagaalka u dhaxeeyay ciidamada Armenia iyo Azerbaijan ayaa maanta ka sii xoogaystay gobolka la isku hayo ee Nagorno-Karabakh iyadoo ay sii kordhayso cabsida la xiriirta khasaaraha dadka rayidka ah kadib markii dhinacyada ay bilaabeen inay madaafiic ku garaacaan magaalooyinka waaweyn gooni u goostada gobolka Karabakh ee Azerbaijan balse asal ahaan ka soo jeeda Armenia ayaa sheegay in dagaalka uu ka socdo furumaha magaalada caasimad goboleedka ah ee Stepanakert halkaasi oo madaafiic culus lagu garaacayo wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa iyana sheegtay in ciidamada Armenia ay madaafiic ku garaacayaan dhowr magaalo oo ay ka mid tahay magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Ganja
taasi oo markii ugu horraysay la garaacay magaalanimadii axadda. madaafiicda sii kordhaya ee lagu garaacayo magaalooyinka waaweyn ayaa kordhiyey cabsida laga qabo inuu sii kordho khasaaraha dhimashada dagaalka oo mar horeba ay ku dhinteen dad ka badan 250 qof. dagaalka oo bilowday sabtidii 27 Sebteembar ayaan weli labada dhinac aysan muujinayn wax astaamo ah oo ay ku doonayaan xabad joojin lagu baajinayo dhimashada dadka halkaasi khasaaruhu ka soo gaarayo. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa xaddii ka dalbaday Armenia inay waqti u qabato inay ka baxayso dhulka Azerbaijan haddii aan taasi la helinna aanu dagaalku marnaba joogsan doonin. Itoobiya dowladda deegaanka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa ku hanjabay in aysan qaadan doonin amarka dowladda federaalka laga bilaabo maanta oo ay ku ekayd xilliga dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, balse waqti loogu daray sababo la xiriira dib u dhac ku yimid doorashada Itoobiya. hanjabaadaasi ayaa xiiso siyaasadeed ka dhex abuurtay gudaha dalkaasi. guddoomiyaha aqalka baarlamaanka Itoobiya Aadam Faarax ayaa jimcihii sheegay in dowladdu ay u bannaan tahay qaabab kala duwan oo ay la macaamili karto xiisadda gobolka Tigreega ka taagan, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xilka laga qaado xubnaha sare ee gobolka, sidoo kalena ay ciidamada u dirto. madaxweynaha Itoobiya ayaa la filayaa inay maanta khudbad ka jeediso baarlamaanka dalkaasi Itoobiya. dhanka kalena ismaamulka Tigray ayaa warqad u qoray beesha caalamka, taas oo kaga dalbanayo inay dowladda federaalka cadaadis ku saaraan ogolaanshaha baaqa nabadda ee ka soo yeeray isbahaysiga xoogaga federaaliga ee Itoobiya, isla markaana ay dalka hor istaagaan inuu burburo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu wariyaasha u sheegay inuu wax badan ka bartay COVID-19 maalmihii la soo dhaafay. waxaan bartay markaan galay iskuulka, kani waa iskuulka runta ah, ayuu ku yiri fariin uu u soo diray wax yar ka hor inta uusan dibadda uga bixin isbitaalka Walter Reed Medical Center ee haatan lagu dabiibayo. wuu igu dhacay waana garawsaday, ayuu yiri madaxweyne Trump. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Kang Yong ayaa raaligelin ka bixisay kadib markii ninkeeda uu u safray Mareykanka soo u soo iibsado markab nooca raaxada ah isagoo jabiyey tallaabooyinkii ku aadana safarka. Lee Yil-yong oo wax ka dhiga jaamacadda Yonsei ayaa sabtidii lagu arkay garoonka caalamiga ah ee Incheon isaga oo ku sii jeeday dalka Mareykanka. waxa uu wariyaasha u sheegay inuu u socdo dalxiis. coronavirus kuma dhammaan doono maalin ama 2 maalin gudahood. guriga iskama fadhin kartid maalin walba, marka sidaan qabo si caadi ah ayaad isaga noolaan kartaa adiga oo taxadaraya, ayuu yiri Mr. Lee. Itoobiya ayaa diiday in diyaarado ay dul maraan biyo-xireenka Nile sida laga soo xogtay website gaar loo leeyahay. agaasimaha guud ee waaxda duulimaadyada Cornel Cole Wasanyeele ayaa website-kaasi u sheegay in wadatashi ay la sameeyeen waaxda ammaanka kadib la joojiyey in diyaarado ay dul maraan gobolka Benishangul, halkaas oo ah meesha laga dhisayo biyo-xireenka, ayaa lagu sheegay warbixinta uu website-ku daabacay. wuxuu sheegay in diyaaradaha rakaabka iyo kuwa alaabta aan midna loo ogolaan doonin inay dul maraan biyo-xireenka, balse xaaladaha gaar ayaa la tixgelin doonaa. taliyaha ciidamada cirka ee dalkaasi Generaal Yilmaz Merdasa ayaa sidoo kale